Loolanka iyo halganka loogu jiro in shidaal laga soo saaro dhulka Soomaalida ma ahan mid maanta ama shalay soo bilowday. Laga soo bilaabo sanadkii 1960kii waxaa Soomaaliya u soo tafaxiitay shirkado doonayay in kheyraadka Soomaaliya uu shidaalka ku jiro sahan iyo suuqgeynba ay ku samaystaan. Waxaa jiray shirkado heshiisyo kala duwan ay la galeen dawladihii dalka soo maray kuwaas oo lagu heshiiyay inay sahmiyaan shidaalka ku jira Soomaaliya. inkastoo aan lahayn heshiisyadaasi la kala saxiixday cadeemahooda haddana waa mid aanan shaki ku jirin jiritaanka heshiisyadaasi. shirkadihii sahminta shidaalka Soomaaliya ka bilaabay lixdamaadkii wixii ka dambeeyay waxaa ka mid ahaa shirkadii ConocoPhillips, Omoko, Chevron, Shell, Arco, Ajib, Eni, Senkula, Total iyo Western Chico iyo kuwa kaleba. shirkadahani badankooda waxaa laga leeyahay dalka Mareykanka marka laga reebo dhowr shirkadood oo laga leeyahay Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska iyo Holland iyo weliba dalka Norway. dhammaan shirkadahani waxay Soomaaliya ka bilaabeen sahmin iyo qiimeyn ay ku sameynayeen dhulka Soomaalida. bal aan soo qaadano shirkadda Western Chico oo ahayd shirkad fadhigeedu ahaa dalka Norway. sanadkii 1979kii markii mudane Cabdullaahi Ciise Allah u naxariistay waa halgamaagii weynaa uu socdaalay waddanka Norway si uu soo qalqaaliyo shirkaddii badrool baarista ee Western Chico ee xarunteeda ahayd dalka Norway. Cabdullaahi Ciise oo xilligaasi ahaa wakiilkii Soomaaliya u fadhiyay wadamada Scandinavian-ka oo afka diblomaasiga loogu yeero Chargé d'Affaires, taas oo macnaheedu tahay qof wakiilka ah dawlad intaysan dawladdaasi safiir rasmi ah u soo magacaaban meel ama dal. Cabdullaahi Ciise Allah u naxariistay oo markaasi ahaa wakiilkii Soomaaliya u fadhiyay Stockholm oo Sweden ah ayaa wuxuu qalqaaliyay heshiisba la soo saxiixday isaga oo dawladda Soomaaliya matalaya shirkadda Western Chico ee xarunteeda ahayd waddanka Norway. sanadkii 1980kii ayay shirkaddii Western Chico bilowday inay badrool ka baarto dhulbadeedka Soomaaliya iyadoo wejiga koowaad ee heshiiskaasi sahminta shidaalka ka bilowday Ras Kamboni ilaa iyo Barawe, wejiga labaadna Barawe ilaa iyo Hobyo. baaritaankii shidaalka lagu sahminayay wuxuu qaatay muddo 2 bilood ah. kadibna si loo ogaado natiijadii ka soo baxday baaritaankaasi markabkii hawsha sahminta ka waday dhulbadeedka Soomaaliya wuxuu dib ugu laabtay saldhigiisii Stavanger oo ah caasimadda saddexaad ee dalkaasi Norway. shirkaddii Western Chico waxay safaaraddii Soomaaliya Sweden ku wargelisay in baaritaankii ay ku guulaysteen gaar ahaan dhulbadeedkii Soomaaliya oo ay baarayeen iyaga oo sheegay inay ka heleen 2 god ama 2 ceel oo aad u waaweyn. shirkadda ayaa sheegtay in kaydka badroolka ku jira labadaasi god uu ka badan yahay kaydka badroolka ku jira waddanka Norway oo dhan, iyadoo aan ognahay Norway in lagu tilmaamo dalalka ugu kaydka badroolka badan qaaradda Yurub. haddaba sidaan hore u soo sheegnay waxaa dalka ku sugnaa shirkado kala duwanaa oo sahmin iyo baaris ka waday Soomaaliya kuwaas oo qandaraasyo kala duwan lagu siiyey baarista shidaalka Soomaaliya. shirkadihii shidaal baarista ka waday Soomaaliya waxay badankooda xoogga saareen dhanka bariga gaar ahaan dhanka waqooyiga oo maanta loo kala yaqaan Somaliland iyo Puntland. shirkaddii Western Chico iyada uu ku faanaysa guushii ay ka gaartay sahminta badroolka Soomaaliya ayay warbixin arrintaasi ay kaga hadlaysay ku soo daabacday wargeys ama bulletin ay shirkadda lahayd midkaasi oo soo bixi jiray bishiiba mar. waxay aad ugu faalowtay shirkadda guushii ay ka gaareen sahminta shidaalka badda Soomaaliya. waxay warbixintaasi u muuqatay fariin ku socotay shirkadaha shidaalka baara oo dhan. shirkadihii shidaal baarista ka waday Soomaaliya waxaa ku bariyay waagii iyaga oo ku baraarugay warbixintii Western Chico. durbadiiba waxay isku soo shubeen Soomaaliya, waxay ka doodeen kana soo horjeesteen sababta shirkadda Western Chico loogu ogolaaday in badda Soomaaliya ay badrool ka baarto. waxay shirkadahani ku doodeen in lagu xadgudbay heshiisyadii caalamiga ahaa ee iyaga lala galay. dawladdii Soomaaliya waxaa qasab ku noqotay inay si degdeg ah u joojiso
hawshii shirkaddii Western Jiko ay ka waday badaha Soomaaliya. Sahmintii shidaalka qarashkii loogu talagalay inuu ku buuxo wuxuu gaarayay $10 milyan. qarashkaasi waxaa bixinaysa dowladda Norway. qarashkii sahminta iyo baaritaanka ku baxay muddadii 2 biloodna waxaa lagu sheegaa $2 milyan. 8 milyan ee soo hartayna dowladdii Norway ayaa dib ula laabatay, ayada oo ku andacootay in qarashkaasi loogu talagalay sahminta shidaalka oo keliya. halkaasi waxaa ku soo afjarmay rajadii ay Norway ka qabtay batroolka Soomaaliya. dowladdii Norway waxaa u cuntami weyday in qarashkii kaga baxay sahmintaasi shidaalka Soomaaliya laga dhigo hal bacaad lagu lisay. dowladdii Norway waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuushay sidii ay ku heli lahayd shidaalka iyo kheyraadka ku jira badaha Soomaaliya. markii ay dowladdii dhexe burburtayna, Norway waxay u aragtay fursad qaali ah oo ay shidaalka iyo kheyraadka badaha Soomaaliya ay kula wareegi karto si fudud. haddaba sannadihii dambe, Norway iyada oo ka faa'iidaysanaysay qaska iyo dowlad la'aantii ka taagnay Soomaaliya ayay mar kale isku dayday inay soo noolayso damicii ay ka lahayd batroolka Soomaaliya oo ay weli ka samri la'dahay. waxaase nasiib dara ah in dowladda Norway ay arrintaasi u martay waddo qaldan oo sharci dara ah, iyada oo Norway ay sannadihii dambe ee shidaal baaris ka waday xuduudaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. sidaasi oo kale waxaan la soconnaa kaalintii fircoonayd ee Norway ay ku lahayd heshiiskii is-afgarad ee kala siixdeen Soomaaliya iyo Kenya. damaca kheyraadka dhulka Soomaalida ma ahan mid ku eg Norway oo keliya. sannadkii 2014 wargeyska ugu caansan dalka Sweden oo lagu magacaabo Aftonbladet ayaa wuxuu qoray warbixin dheer uu kaga hadlayay in dagaal uu u dhexeeyo shirkadaha shidaalka ee Sweden iyo Norway. dagaalkaasi oo ku saabsan shidaalka Soomaaliya, gaar ahaan aagga magaalada Holhol oo u dhow Laascaanood. shirkadda Lundin African Oil oo Sweden laga leeyahay iyo shirkad kale oo reer Norway ah oo lagu magacaabo DNO International waxay hal goob oo shidaal laga sahminayo labaduba heshiisyo kala duwan kula galeen laba dhinac oo midba sheegto inay iyaga ka taliyaan halkaasi, aaggaasi oo ku aastaysan Nugaal number 1. isla goobtaasi ay Sweden iyo Norway isku haystaan, waxay dowladdii hore Soomaaliya heshiis shidaal sahmin ah kula gashay shirkaddii Maraykanka ee lagu magacaabay ConocoPhillips. ConocoPhillips oo ahayd shirkad Maraykan laga leeyahay, waxay iyadana heshiisyo dhowr ah ay la gashay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. heshiisyadaasi badankooda waxay ahaayeen kuwo dhanka bariga oo keliya, gaar ahaan in shidaal laga baaro dhanka waqooyi galbeed oo Somaliland ah iyo waqooyi bare oo Puntland ah. inkastoo heshiisyadaasi badankooda aysan fulin sababo xagga amniga ah, gaar ahaan cabsi laga qabay jabhaddii SNM inay weerar ku soo qaaddo goobahaasi shidaal baarista ka socotay.